Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kinaalka hoyga bulshada kusoo dhowaada barnaamijkeenii caawa. Mawduuceena caawa waxaan kaga hadli doonaa qiso ku dhacday arday iyo macalinkiis oo xeelad kaga badbaadiyey khalad uu sameeyey ardaygu mar uu yaraa, balse maalin sanado badan kasoo wareegtay ayaa xaflad guur iyagoo la joogo ayaa nin ka mid ah dadkii kasoo qeybgalay waxa uu arkay macalinkiisii dugsiga hoose u dhigi jiray in ku dhowaad 30 sano ka hor ishana qac ku siiyey, inkastoo markiiba uu xasuus galay, balse intaa kadib ardaygii baa macalinkii u qaabilay si qurux badan iyo qadarina ku dheehan tahay iyo ixtiraam. Ardayga ayaa waxau yidhi isagoo qajilaya ama xishoonaya, may xasuusataa macalinkaygiiow? Macalinkii wuxuu yidhi may wiilkaygiiow. Ardaygii wuxuu yidhi waxaan ahay ardaygii xaday saacadda saaxiibkiis iyadoo iskoolka ama fasalka lagu jiro markaan dugsiga hoose ku jirnay. Isagoo hadalka sii wataa wuxuu yidhi kadib markuu ardayga bilaabay inuu ooyo ama ilmeeyo, maadaama saacadda laga xaday waxaad nagu amartay inaan istaagno dhammaanteen si aad noo baarto jeebabkeena, kadibna waxaan rumaystay inaad ardayda igu hor ceebayso ama igu fadeexadayso ardayda iyo macalimiinta kalena hortooda, kadibna aan noqdo wiil tuug ah oo fasalka caanka ah. Maadaama sidaasi aan nafsadaydu ay istiri mar kale noo amartay macalinkaygiiow inaan wejiyadeena dhanka derbiga u jeedino, maadaama xeerka arday haddii wax laga xado samuurada lasoo istaagayo kadibna la baaraya ardayda, indhahana aan isku qabanno. Kadib waxaad bilowday inaad jeebabkeena baarto. Markaad soo gaartay anoo naxsan, dhidid aad badanna iga da-ayo, aad i baarto waxaad jeebkayga ka bixisay si hawl yar saacaddii saaxiibkayga fasalka, waxaadna sii wadatay baaritaanka ilaa aad ka gaadhay ardaygii ugu dambeeyey. Kadib markaad dhammaysay waxaad nagu dalbatay inaan fadhigeennii ku laabano annagoo koox arday ah. Anigu waxaan ka naxsanaa markaa inaad igu fadeexadayso ardayda horteeda. Waxaadse samaysay macalinkaygiiow inaad saacaddii siisay ardaygii iska lahaa, iyadoo intii aan ku jiray waxbarashada iskoolka oo dhan aadan hal marna igu soo qaadin dhacdadaas ilqaloocdana aadan marnaba igu eegin. Sidaasi daraaddeed macalinkaygiiow wakhtigaa laga bilaabo waxaan go'aansaday inaanan xadin shay haba yaraade ama ha badnaadebe, inaan ilaaliyo qof walba sharaftiisa iyo hantidiisaba aanan ilaaliyo intaan iskoolka ku jiro. Haddaba sidee igu xasuusan weyday macalinkaygiiow anoo ah ardaygaas? Qisadeeduna sidaa u xanuun badan tahay wayna suurtagal ahayn inaad aayar oo dhalatay aad hilmaanto ama ilowdo, anna aan ilaawo. Kadib macalinkii waxa uu qaatay hadalkii, dhabarka ayuuna ka dhirbaxay si naxariisi ugu jirto. Ardaygii isagoo dhoolla cadaynaya wuxuu yidhi si wanaagsan waan kuu xasuustaa dhacdadaas. Waxaan ugu tala galay inaan idin baaro idinkoo indhaha xiran si arrintan kan wax sameeyey ugu fadoxdoobin ardayda dhexdooda. Laakiin waxaadan ogeyn wiilkaygiiow inaan idin baaray anigoo sidoo kalena indhaha xiran si aan u dhammaystirnaato asturnaanta qalbigayga, qofkaasna ugu soo dhicin mar kale, ardaygaasna aanan u arag. Xigmadda qisadan lagala baxayo waxay tahay inaan ogaano asturnaantu inay tahay nimcad weyn oo Allah qof walba muslim ah ku galaday. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mawduuceeni caawa ee saaxiibayaal, fii amaanillaah.